kulanti wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay doorashada madaxweynaha ee maanta ka dhacaysa Muqdisho. Mashquul xoogan oo laga dareemayo guryaha murashaxiinta, madaxweyne Farmaajo oo diiday in uu isdhiibo, iyo murashaxiinta oo bilaabay xalay bixinta lacagihii ugu badnaa si ay u gataan xildhibaanada. haddaba imisa ayaa laga bixinayay Villa Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo oo sameeyay arrin la yaab leh kadib markii xildhibaanada lacagaha uu siiyey uu ku qasbay inay xalay dhex seexdaan madaxtooyada, isla markaana ay maanta si wada jir ah isugu raacaan hoolka doorashada. beesha caalamka oo war adag ka soo saartay doorashada maanta dhacaysa xilli ay digniin culus u dirtay xildhibaanada. haddaba miyay beesha caalamku ka soo horjeedaa in uu soo laabto madaxweyne Farmaajo? Qodobada kale waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku dhawaaqay arrin lama filaan ah kadib markii uu shaaciyey in uu yahay murashaxa kaliya ee ku soo baxaya isbedel doonka, isagoo dhinaca kale weeraray madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheikh iyo Sheekh Shariif, iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo taageero culus u raadinaya Siciid Dani xilli uu kulan la qaatay xalay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana subax markaasi axad ah, taariikhdu waxay ku beegan tahay 15 bisha shanaad ee May sanada 2022. barnaamijkan sii shargareeya oo u sii gudbiya saaxiibadeena kale ee idinkugu jira baraha bulshada. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. aynu ku bilowno wararkeena. waxaanu ku bilaabaynaa xogihii ugu dambeeyay ee doorashada maanta ka dhacaysa ee magaalada Muqdisho, iyo ololaha ugu dambeeya ee sidoo kale socda lacagaha la bixinayo ilaa iyo hadda iyo sida xaaladdu ay markaasi tahay. waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maanta lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha Soomaaliya. doorashadu waxay si gaar ah kaga dhacaysaa teendhada Afisyooni. ammaanka waxaa sugaya ciidamada ATMIS ee Midowga Afrika, sidoo kale ciidamo booliis ah oo aan hubaysnayn ayaa gudaha markaasi hoolka doorashada ka dhex shaqayn doona. doorashada ayaa waxay tahay mid maanta aad u xiiso badan. xaalaynta lagama hoyan magaalada Muqdisho marka loo fiiriyo guryaha ay degan yihiin murashaxiinta madaxweynaha, weliba kuwa markaasi ugu cadcad sida madaxweyne Farmaajo, madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif Xasan Sheikh, Xasan Cali Kheyre, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Siciid Cabdullaahi Dani, maadaama raggaasi ay yihiin kuwa markaasi ugu culus ee iyagu sameynaya gorgortanka iyo in ay xildhibaanada markaasi codadkooda weydiistaan. haddaba waxaa qorshuhu yahay haddii aysan wax isbedelin in markaasi maanta doorashadu ay dhacdo. diyaargarowgii ugu xooganaa ayaana markaasi soconaya. dhinaca kale wararka aynu ka helayno markaasi ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegaya in xalay xilli dambe ilaa saakay ay soconayso bixinta lacagaha murashaxiinta siinayaan xildhibaanada. xogta aynu helnay ayaa sheegaysa in xarunta ololaha murashax madaxweyne Sheekh Shariif Axmed ay noqotay halkii ugu horeysay ee lacag laga bixiyey, waxaana kadib ku xigsaday inta badan murashaxiinta kale. murashaxiinta ayaa bixinaya lacag u dhaxaysa 30 ilaa iyo 50 kun oo dollarka Mareykanka ah, iyadoo ay ku xiran tahay miisaanka xildhibaanka iyo heerka uu ka caawin karo murashaxa in uu markaasi xubno kale ku soo biiriyo. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in madaxweyne Farmaajo iyo Siciid Dani ay iyaguna bilaabeen bixinta lacagaha, inkastoo Siciid Dani la sheegayo in uusan weli markaasi wax lacaga ah bixin. wararka la helayo ayaa intaasi ku daraya in madaxweyne Farmaajo uu bilaabay bixinta lacago gaaraya ama u dhaxeeya 100 kun ilaa iyo 150 kun oo dollar iyo akoon, oo markaasi ka dhigan tahay in xildhibaanka markaasi akoonka loogu shubayo. Villa Soomaaliya ayaana doonaysa in ilaa iyo lacagahaas 100 kun iyo ka badan ay ku soo xirigeliso xildhibaanada, waxayna noqon doontaa lacagtii ugu badneed ee abid lagu iibsado cod xildhibaan, waxaana adag in la helo murashax bixin kara lacag intaasi cadadeedu ay gaarayso. geesta kale, Machadka Sahan Research ayaa qoray in uu helay warbixin sirdoon oo sheegaysa in dowladda Qatar iyo Fahad Yaasiin ay si hoose u taageerayaan murashax madaxweyne Cabdiqaadir Cosoble Cali. warbixinta ayaa lagu sheegay in Cosoble oo wax ku soo bartay dalka Masar isla markaana ka tirsan urur-diimeedka Islaamiga ah ee Al-Ictisaam uu fikir ahaan aad ugu dhow yahay Qatar, uuna hadda yahay qorshaha labaad haddii Farmaajo uu meel wanaagsan markaa gaari waayo. waxaana arrintaasi ay tahay mid aan si rasmi ah loo xaqiijin karin. haddii warbixintan ay noqoto sax, waxaa isbedel weyn ku samaysmaya loolanka doorashada, waxaana Cosoble ku soo biiri karta xubnaha ka gudbi kara wareegga koobaad ee doorashada. loolanka ayaa waxaa weli ku horeeya madaxweynaha markaasi jamhuuriyadda Maxamed Farmaajo iyo madaxweynihii ka horeeyay Xasan Sheikh, kadib markii Xasan Sheikh uu isagu helay xildhibaano fara badan oo ka soo goostay dhinaca Farmaajo oo Somaliland iyo Koonfur Galbeed ka kala yimid,
halka uu hore u haystay xildhibaano fara badan oo Hirshabelle iyo Galmudug markaasi ka soo baxay. Kasokow Xasan Sheikh, murashaxiinta kale ee la filayo inay wareegga koowaad ee kasoo gudbaan ayaa ah Farmaajo, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Siciid Dani, iyadoo Cosoble markaasi ay suurtagal tahay inay taageerto Qatar sida xogta ay sheegayso. Xogta NLA ayaa sheegaysa inay u badan tahay in wareegga ugu dambeeya doorashada ay isku wajihi karaan Xasan Sheikh, Sheekh Shariif iyo sidoo kale Farmaajo haddii aanay wax isbedelin saacadaha ugu dambeeya. Waxaana sidoo kale meesha laga saari karin in la yaab uu ka dhaco doorashada xubno markaasi lama filaan noqon kara oo iyagu markaasi doorashada meelo fiican ka soo gaari kara. Xaaladda ayaa waxay tahay mid saacad waliba isbedeli karta, iyada oo saacadihii ugu dambeeyay ee xamaasadda la gelayo waxaana markasta abuurmaya isbahaysiyo cusub, taasi oo xaaladda si degdeg ah markaasi u bedeli karta. Isla wararkaas ayaynu ku guda jirnay. Madaxweyne Farmaajo xalayta waxa uu sameeyay arrin aad markaasi loo hadalhayo oo yaab badan oo markaa ku saabsan xildhibaanada codadka uu ka doonayo. Madaxweyne Farmaajo ayaa xildhibaanadii xalayto la joogay waxa uu ka dalbaday inay markaasi hoydaan oo ay dhex seexdaan xarunta dalka looga armiyay madaxtooyada, lacagahoodana la siin doono. Markaasi wixii ka dambeeyana ay maanta si wadajir ah isugu raaci doonaan teendhada Afisyooni amaba hoolka doorashada ay ka dhacayso. Arrintan ayaa waxa ay markaasi tahay mid kalsooni darro weyn muujinaysa oo Villa Soomaaliya ay ka cabsi qabto in xildhibaanada ay markaasi olo kala sameeyaan oo ay murashaxiin kale u tagaan. Madaxweyne Farmaajo ayaa doonaya in markaasi xildhibaanada qaarkood uu markaa dhaariyo qaarka uusan ku kalsooneen, isla markaana kitaab gacanta loo geliyo si markaasi ay u dhaartaan lacagahana loo siiyo. Balse xildhibaanadan ayaa markaasi waxay yihiin kuwo aan mar waliba la aamini karin, waana sababta keenaysa in kitaab iyo sidoo kale in ay xarunta madaxtooyada dhex seexdaan keenaysa kalsooni darrada amaba aaminaad darrada lagu qabo. Lama oga madaxweyne Farmaajo in doorashadan markaasi guul uu ka keeni karo iyo in kale, maadaama cabsi badan ay ka muuqato. Hagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan. Beesha caalamka waxa ay markaasi iyadu war ka soo saartay doorashada dalka ka soconaysa, si gaar ah doorashada maanta ee dhacaysa. Waxayna markaasi fariin u dirtay qaybaha kala duwan ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, iyadoo uga digtay inay doortaan madaxweyne xaaladda uga sii dari kara. War-saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa fariin dardaaran ah waxaa loogu diray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo maanta dooranaya madaxweynaha Soomaaliya. Wakiilada beesha caalamka ayaa xildhibaanada kula dardaarmay in ay damiirkooda kaashadaan oo waajibaadkooda dastuuriga ah ay u gutaan si markaasi madax bannaan. Sidoo kale wakiilada beesha caalamka ayaa xildhibaanada ugu baaqay in ay codkooda siiyaan murashax samata bixin kara ee Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur xalayto waxa uu markaasi isagu qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlayo arrimo dhowr ah oo ku saabsan doorashada iyo in uu yahay murashaxa kaliya isbedel doonka markaasi ugu weyn ee ku soo bixi kara. Murashaxa oo markaasi shirkiisa jaraa'id loo dhegtaagaya go'aanka uu ku dhawaaqi doono ayaa ka hadlay rajadiisa tartanka doorashada madaxweynaha ee maanta, wuxuuna sheegay in xildhibaano badan ay taageereen markii ay la hadleen dadkooda iyo ehelkooda, una markaasi sheegeen in ay isaga u codeeyaan. Ujeedka ugu weyn ee shirka jaraa'id ayaa ahaa inuu murashax Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka codsado dadka shacabka inay wacaan xildhibaanada kana dalbadaan in ay isaga markaasi doortaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xaaladiisa deganeyd balse welwel ka muuqday ayaa sheegay in dalka dooran doono isbedel sida madaxda labada aqal ee baarlamaanka oo xubno mucaarad ah loo doortay. Waxa uuna rajo ka muujiyey in maanta markaasi guul uu u dabaaldegi doono. Murashaxan oo ay taageereen laba murashax oo iyagu naftarkooda aanan sidaasi saameyn u lahayn ayaa hadda waxa uu iska dhigayaa mid markaasi rajo badan leh amaba rajo badan ka leh doorashada markaasi maanta qabsoomaysa. Ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa taageero waxa uu raadinayaa saaxiibkiisa siyaasadda ninka la yiraahdo Siciid Dani. Waxa uuna markaasi kulamo ka wadaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa waxa uu xalayto markaasi la kulmay madaxweynaha maamulka Galmudug, waa madaxweynaha maamulka Hirshabelle aan raahday Cali Goodlaawe. Sidaan wararka ku helnay, kulanka labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Hirshabelle ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah, waxayna diiradda ku saareen doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee maanta markaasi ka dhacaysa Afisyooni. Labada madaxweyne oo u kala ololeynaya murashaxiin kala duwan ayaa ka sheekaystay doorashada madaxweynaha iyo doorka ay ku yeelan karaan, waxayna labada madaxweyne isla garteen in si hoose iskula socdaan inta doorashadu markaasi socoto.
madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa dhammaan ku sugan muqdisho, waxa ayna markaasi madaxdan marka laga reebo Siciidani oo isagu murashaxa inta kale ay kala taageerayaan murashaxiin iska soo horjeeda. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkan la mid ah intaanu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.